بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cantar Sayid Xuseen waxaan kugu soo dhaweynayaa xarunta Baafo waxaan rabaa inaan iskala shaqeyno su'aal yar aan ka soo qoray book aan aqrinayo marka waxaan u arkay inay aad muhiim u tahay isla markaasna ay ku wanaagsanaa lahayd inaan kula wadaago waxaan xisaabineynaa adeeg shirkad ay qabanayso waxa uu ugu fadhiyo adeegaas ay bixinayso dabcan shirkadaha amba badeeco ayay iibiyaan amba adeeg ayay qabtaan marka shirkadan adeeg ay qabataa waxaan rabnaa inaan xisaabino adeegaas ay qabanayso waxa uu shirkada ugu fadhiisanayo qoladan waa qolo timaha jaraan waa timo jaro waa ganacsi timaha lagu jaro ganacsigan timaha lagu jaro magaalada ayuu ku yaalaa bishan February ganacsigii waxa uu sameeyay timo jaris wuxuuna u shaqeeyay macaamiishiisa uu shaqeeyay bishan February tirahan wixii gaaraya 230 macaamiil ayaa timaha loo jaray lacagta laga aruuriyay 230 kaas macaamiil waxay gaaraysaa 5200 wuxuu noqonayaa dakhliga soo gala timo jaraha waxay galeen qarashaadkan soo socdo marka meesha waxa ku yaala afartan qarash ayay galeen marka waxaan ku qasbanaa doonaa qarashaadkaas inaan isku geeyno kadibna intii qofood ee timaha loo jaro aan u qaybino si aan u ogaano qof walba timaha loo jaray wixii qarash ay naga galay kabacdina waxaan soo saari doonaa wixii aan qof walba on average aan biciliis ahaan qof walba lacagtii aan ka qaadanay oo ahay dakhliga ama lacagtii uu bixinay markii adeega loo qabanay timo jarista qarashaadka meeshaan uu igu yaalaa meeshaan ayaa rabaa markii aan ku diyaariyo mid ayaan u soo aqri doonaa hair supplies expense waxyaalaha lagu shaqeynaayo markii timaha la jarayo sida saabuunta la marinayo shaambada qofka timaha loogu dhaqaayo boolbaraha loo marinayo biyaha lagu buufinayo saliida waxaasna waxa loo yaqaan hair supplies expense ayaa loo yaqaan waxay noogu kacday bishan February waxaan soo iibinay oo macaamiisha aan ugu shaqeynay $805 kirada guriga la degan yahay amba qolooyinkan businesska timaha jaraha waxay ku bixiyeen $150 bisha February intaas ayaa laga qaaday utility expense-ga oo ah korontada biyaha la isticmaalayay sida caadiga markii la shaqeynayo waa iska taqaanaa waa in la helaa koronto si mashiinada wixii air conditionkii wixii dhammaan loo shaqeysiiyo qalabkan oo timaha lagu jaraan inta badan waxay ku shaqeeyaan koronto sidoo kale biyo in la helo qasab ay noqonaysaa marka intaas markii la isku wada geeyo waxay gaaraysaa $184 ayuu noqonayaa waxaan ugu xigo depreciation-ka ama qiimo dhac ku imaanaya qalabka lagu shaqeynayo oo timaha lagu jaraayo makiinadaha la isticmaalayo wixii kale oo air conditionka TV-ga wixii yaale qiimo dhac ku imaanayo waxay noqdeen markii la isku wada geeyo la soo xisaabiyay $46 hadaba ganacsigan timaha jaraayo qarashaadkan kala duwan ayay galeen guud ahaan bishan February qarashka ay galeen ayaa isku soo keenaya anoo isticmaalaya functionska fudud loo yaqaano sum marka article ayaan taabanaya automatically function kan wuxuu awood u leeyahay inuu raadiyo nambarada uu isku geenayo bacdaba nambarada kor ay ka xigaan wuxuu sameeyaa marka nambarada ay soo qabanaya waxa uu abuuraya range wax loo yaqaan range wuxuu noqonayaa godka ugu horeeya oo ah N6 ayuu ka soo bilaabaya ilaa godkan ugu dambeeya oo ah depreciation expense-ga oo $46 ku jirto ayuu keenaya waana N9 marka intaas wixii ku jiro ayuu wuxuu sameeyaa inuu isku soo geeyo inta ayaan taabanaya waxay galeen $285 bisha February waxa loo shaqeeyay 230 macaamiil ayaa loo shaqeeyay si aan u soo saarno macaamiil walbaba lacagta ee inoogu fadhiisatay shaqada aan u qabanay waa iska fududahay lacagta guud ee inaga baxday amba aan galnay bisha February ayaan waxaan u qaybinaynaa tirada macaamiisha loo shaqeeyay markii labadaas markii aan isku qaybino oo 285 aan u qaybino 230 waxa meesha soo baxayso macaamiil walba oo loo shaqeeyay shirkadda qarashka ay ugu fadhiisatay shaqadiisa waxay gaaraysaa $9 hadaba macaamiishan lacag ayaa laga qaaday lacagta guud ee laga qaaday hore noogu sheegan waa $5200 waxaan leenahay sales and revenue waxa uu bixisidba dakhli ahaan bishan February qoladan timo jarid waxa soo galay $5200 marka meeshaas ayaan ku qoraynaa waxaan rabnaa inaan soo saarno selling price-ka amba celcelis ahaan waliba iyadoo average selling price-keena qof walba lacagtii laga qaaday amba lacagtii uu bixiyay si timaha loogu jaro
marka waxay noqonaysaa selling price-ka oo iska fudaanaysaa. Lacagtii aan ka qabanay guud ahaan macaamiisha oo ah 5200 ayaan waxaan u qaybinaynaa tirada macaamiisha aan u shaqaynay oo ah 230 qofood. Markii aan isku qaybino celcelis ahaan qof walbaba waxaa laga qaaday $22.61. taas micnaheedu ma ahan in dhammaantood ay intaan ay bixiyeen. waxaa macquul ah heshiis inuu jiro dadka qaar in $20 laga qaado, dadka qaar $22 laga qaado, dadka qaar $25 laga qaaday. waxay ku xiran tahay adeega iyo tinta la qabanayo, qaabka loo jaraayo way kala duwan yihiin. hadda naftigeeda xamar markaan ka hadlayno waa sidaas, qofkii la dhukurayo iyo qofkii geesaha loo habeenayo iyo qofka garka loo xiirayo kulli isku lacag lagama qaada, lacagaha way kala duwan yihiin. hadda waxay ku xiran tahay adeega la qabanayo iyo tinta qaabka loo jaraayo. laakiin celcelis ayaan iska soo saaraynaa. celceliska waxay noqonaysaa $22.61 in qof walba uu bixinaye. meeshaasna aan ka helnay 5200. haddii aan hal talaabo kale aan kusii darno gross marginka, haddii aan xisaabino oo ah faa'iidada buuran, waxay ku imaanaysaa lacagta na soo gashay dakhliyan oo 5200 ayaan waxaan ka jaraynaa lacagtii aan galnay oo ah 2185. inter markii aan taabano gross marginkeena wuxuu noqonayaa 3015. waa haddii uusan jirin qarashaad kale ee la sii galay oo xayeysiin iyo mushaaharaad iyo waxaas hadduusan jirin. haddii qarashaad uu jiro sida caadiga ah waxaa imaan doona xayeysiinta la sameeyey, mushaaharaadkii shaqaalaha meesha ka shaqaynayay, dadka nadiifinayay, waxaasoo dhan marka waxay noqonaysaa in laga sii jaro intaan kadibna net income la helo. المهم waxaan meeshaan arabnay inaan xisaabino kaliya ayaa waxay tahay intaan kale waa iskaga darnayo in qof walbo adeeg loo qabto bishan February lacag ahaan wuxuu ku fadhiisanayaa adeegaas la siiyay wixii gaaraysa $9 iyo bar.